wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Turkiga isla markaasina safarkiisa aan la sii shaacin ayaa sabti fi xiriir uu la sameeyay waxa uu wasiirku u xaqiijiyay inuu ku sugan yahay dalka Turkiga una tagay hawlo shaqo. wasiirku waxa uu intaasi ku daray inuu kulan la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda umuraha dibadda ee dalkaasi Turkiga isla markaasina ay ka wada hadleen arrimo labada dal quseeya oo ay labada dhinac u arkaan inay muhiim u yihiin labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliland. hase yeeshee wasiirka ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraad ah arrintaasi ka sii bixiyo. waxaanu wasiirku sheegay inuu dib ka sheegi doono war faahfaahsan oo la xidhiidha arrintaasi mas'uuliyiinta dalka Turkiga oo kulanka kala qaatay waqtigeeda ay suurtagal noqoto ayuu yiri wasiirku. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay safarraan la sii shaacin ku tagayay qaar ka mid ah dalalka dibadda balse mar dambe ay soo baxday xidhiidhada cusub ee wasiirku la sameeyay dalalkaasi dibadda sida safaradii uu ku tagay dalalka Gambia iyo Taiwan. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Master Faratoon ayaa haatan u muuqday inuu wax ka bedelay siyaasadii arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo qaabka ay wasiiradii ka horeeyay u waajihi jireen isla markaasina uu jeexay dariiq cusub oo diblomaasiyadeed. cali fahad wararka saa Hargeysa. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo accountkiisa Dar es Salaam Bank. haddaba la soo deg abka PC